munaasabadani oo ahayd mid ay xilalka kala wareegayeen wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda waxbarashada Dr. Cabdixakiin Siciid Bustaale iyo wasiir ku-xigeenkii hore Axmed Xasan Nuur ayaa maanta waxay ka qabsoontay xarunta wasaaradda waxbarashada. munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay shaqaalaha wasaaradda, wasiiro, agaasimayaal iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda, qaar ka mid ah haweenka xisbiga kulmiye iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar. waxaa kale oo intii munaasabaddu socotay halkaasi ka hadlay ganacsade Maxamuud Qaalib, wasiir ku-xigeenkii hore ee qorsheynta, gudoomiyaha komishanka tamarta Axmed Cadare, wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha Yurub Abiib iyo qaar ka mid ah haweenka xisbiga kulmiye, iyagoona dhammaantood sagootiyay wasiirkii hore soona dhaweeyay wasiirka cusub ee loo soo igmaday wasaaradda. Kan cusub Cabdixakiin Siciid Bustaale oo runtii ah nin dhalinyaro ah, aqoon-yahana, karti fara badan iyo dadaal aan ku aqaano, nin xisbiyahana oo xisbiga kulmiye rag dhiigooda soo shubaya. aad iyo aad runtii ugu mahadnaqaynaa. waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala wasaaradda waxbarashada wasiir ku soo dhawo Cabdixakiin. ma sha Allah wasiir, waxaan ku leenahay marka hore soo dhawo wad koowaad, sharaf bay noo tahay. Cabdixakiin ilaahay ha ku asturo xilka cusub ee loo dhiibay. wasiir ku-xigeenka kale la sii sagootiyana ilaahay khayr uga dhigo halkaa uu tagayo. inteena halkan fadhida ee niyad wanaaga kaga soo qayb gashay xafladana ilaahay miisaan xasanaadka haw saaro. waxa kale oo islaan halkan uga mahadnaqaya wasiir ku-xigeenka cusub oo isaguna la keenay wasaaradda waxbarashada, walibana ahaa oo aan u qirayo inuu ahaa nin xusbiyahana oo xusbiga kulmiye raggii ka soo qayb qaatay ee tiirka weyne xagga dhalinyarada uu ka mid ahaa. waa soo dhaweynaya Cabdixakiin. Axmed Taajirna wasaaradda kale baynu ku sii garab galaynaa. wasiirka ku-xigeenkii hore waxaan ilaahay uga baryayaa inuu xilkiisa cusub u fududeeyo kuna asturo. waxaana leeyahay wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda waxbarashada Cabdixakiin Siciid Bustaale isaguna inuu ilaahay xilkiisa u fududeeyo. anagoo dawladda iyo xisbigiyaba waxaan wasaaradda keena maanta u galbinaynay Cabdixakiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda. waxaan leenahay maanta waxaan keenay haldoorkii ragga ma odhanayo wada hadoo rag oo dhamiye haldoorkii dhalinyarada. waxaan wadnay ninkaa dariiska xisbiga ahaa, aqoon-yahana, awood badan leh, firfircoon. waxaan maanta qiraynaa halkan wasaaradda maadaama la keenay wasaaradda maanta inay hore u kacsan sii duuli doonto insha Allah. halkan waxaanu usoo kalahnay aanu galbinaynay wasiirka iyaga cusub Cabdixakiin oo ku suntan xisbiga kulmiye ahna intii xisbiga kulmiye. wasiir ku-xigeenka xilka la wareegay Dr. Cabdixakiin Siciid Bustaale iyo wasiir ku-xigeenkii hore ee xilka wareejinayay ayaa iyaguna madasha ka hadlay, waxaana yiraahdeen wasiir firfircoon agaasimuhu wasaaradda uu ku ababay isagoo in yar la keenay xabad buu garanayaa, wax ka naaqus ma jiro, dushuu ka hayaa. ilaahay cimrigeena ha u siyaadiyo, aqrigeena ha u siyaadiyo. nimanka maxayda agaasimayaashana oo dhowr iyo 10 waa rag wada khibrad leh, rag iyo dumar midkay doonaba haadaan. waana aanu intaan la joogay wax dhibaato ah kumaan arag, ixtiraam iyo wada shaqeyn wacan. Cabdikariinna waxaan filayaa in asaa loola shaqeeyo. runtii sharaf weyn bay tahay maanta aan halkan kula wareega xilkan. waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ii gartay inaan wasaaradda ka noqdo wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo sayniska ee wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Somaliland. waxaan ugu mahadnaqayaa wasaaradda uu keenay oo ah wasaarad aan hore ahaan bahawlo ahaa oo ku abtirsado oo aabahay ka mid ahaa macallimiintii wax ka dhigi jirtay dalka dawladdii hore xilliga jirtay iyo xilligii dambaba. waxaan ogahay mas'uuliyadda ay saaran oo dareemayo qiimaha ay qaranka ugu fadhido wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Somaliland, iyadoo ka mas'uul ah sida halkan laga sheegay arday ku dhow 500 oo kun oo arday oo ka mid ah ardayda dalkeena wax ku barata. waxaan ogahay halkii laga soo bilaabay waxbarashada oo ka mid ahaa ardaydii geedka hoostooda wax laga soo bilaabay ee tacabka badan la soo geliyay ee xilligaasi macallimiintii wax noo dhigaysay ay ku sugnaayeen xaalad maanta haddaad dib ugu noqotaan aanay arday badani
ay maanta ka qori lahaayeen kaysisteliyo ka mid ah nolosha iyo sooyaalka waxbarashada dalka. waxay ahayd xilli adag, xilli uu dalku ka soo kabanayo xilliyo burburo lagu jiray. macallimiintaasi waxay ku shaqayn jireen mushaar la-aan, waxay ku shaqayn jireen iyada oo waddanku miinaysan yahay intay buug iyo qalinka iyo samuuradda noo soo qaataan geed hoostii noogu xidhaan. waxaan u hambaleynayaa in u mahad celinayaa cid kastoo dadaalka ka soo qayb qaadatay oo noo saamaxday inaan wax ku baranno calanka jamhuuriyadda Soomaaliland hoostiisa. waxaan ballan qaadayaa inaan sii wadi doono intii waajibaadka dastuuriga ay saaran yahay ee wadaniyadu ay farayso, inaan qaranka ugu shaqayn doono si daacada, dal jacayl leh, muwaadiniinimo ku jirto, taasi oo aan ugu shaqayn doono si ay cadaalad ku jirto. mas-uuliyadda wasaaradda tan waxaan u ballan qaadayaa shaqaalaha halka kan fadhiya, agaasimo waaxeedyada iyo mas-uuliyadda kala duwan ee agaasima wasiirkaba, inaan loo shaqayn doono si sinaan iyo cadaalad leh, ay ku jirto hufnaan iyo hogaamin dhab ah, ay ku jirto iskuwad, waayeelnimo, walaalnimo iyo wax wada qabsi guud oo aynu doonayno qaranka mas-uuliyadda inoo saaran inaan u hiilino, oonu dhexda u xidhanno. ardaydeenaasi laynagu aamino ay noqdaan qaar qaranka aaminsan oo aynu ku dhaqno siyaasadda guud ee qaranka jamhuuriyadda Somaliland. waxaan ballan qaadayaa inaan isku wadi doono oon fulin doono barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye oo ku galay kambeynka ee ka mid ahaa daadejinta iyo kor u qaadista tayada waxbarashada qaranka Somaliland, bixinta adeegyo waxbarasho oo gaara min degmo ilaa gobol, sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Somaliland oo mas'uuliyad qaaday muwaadin kasta oo Somaliland inuu helo waxbarasho sida ku cad dastuurka qaranka. waxaan ballan qaadayaa inaan ahaan doono oon idiin ahaan doono dhex idinku hogaamisa siyaasadda guud ee qaranka, inagoo ka duulayna yoolka guud aan hiigsanayno horumarinta waxbarashada qaranka jamhuuriyadda Somaliland. waxaan ballan qaadi doonaa in la shaqayn doono si hufan oo ay ku jirto cadaalad, oo ay ku jirto wada shaqayn dhabi hay-adaha la shaqeeya wasaaradda waxbarashada qaranka iyo sayniska, jaamacadaha dalka ee kala duwanna aanu la shaqayn doono sida ugu qiimaha badan leh ee qaranka dhismihiisa siyaasadiisu ay ku jirto. ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa shaqaalaha wasaaradda kala duwan ee mas-uuliyiinta qarankaba ee wasaaraddan u shaqaynaya inay la shaqeeyaan si wanaagsan oo ii garab istaagaan. anigana waxaa iga go-an inaan idinla shaqeeyo sida halkan wasiirku ka sheegay oo hufan, inaan garabkiina ahaado. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasiir ku-xigeenka cusub cabdixakiinna waxaynu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan baynu ku soo dhaweynaynaa. waxaynu leenahay wasaaraddaadii baa timi. awal horeba cabdixakiin de wuu ka tirsanaa bahda waxbarashadoo macallin buu jaamacadda ka yihi oo bahda kuma cusba, laakiin wuxuu uu inagu soo kordhin doonaa. dee haweenka waa kuwii haweenkii xisbigu inagara calantee yidhi wasiirada hadda jooga xagga xisbiga, iyo taana wuu nagu soo kordhinayaa intiina dhaafi jirtay isagaa na soo jeedinaya o odhanaya xaggan eega. waxa aan doonayaayoo keliya in aan ku soo koobo, dee axmed taajirna 2 tallaabo inoo jiraa, wuxuuna inoo hayaa qorshayntii oo iminka weli halkaasu inooga hawanayaa. 3dayadii hore joognayba wada axmed baanu ahayn, markaasaanu weliba axmed toorne, axmed taajir, 3dayaduba isku macnaaleysahayaga isu dhowaa. iminka cabdixakiin baan ugu soo biiray maasha allah. wasaaradda shaqaaluhuna way ogyihiin, madaxda wasaaradduna way ogyihiin. waxaanu u maamulaa iminkana u maamuli doonaa si wada jira, iyadoo dee hayrarka iyo kala sarrayntu ay jirayso, haddana wada tashi iyo wada jir baanu ku wadnaa. xitaa waxaanu samaynay 12 waaxood bay wasaaraddu ka kooban tahay. 3dayadii midba wuxuu sii dabageli jiray, uu maamuli jiray 4 ka mid ah ayuu gaar u sii dabageli jiray. iminkana 4tii wasiir ku-xigeenku axmed taajir dabageli jiray unbuu cabdixakiinna inoo is dabageli, iyadoo wasaaraddana dee qaabkeedii aan lagu xadgudbayno sideedii loo wadayo iyo sharcigu siduu ahaa. gabagabadiina waxaa halkaasi xilalka kula kala wareegay labada mas-uul. Nashaad Farxaan Cali, Home Cable TV, Hargeysa.